kulanti wacan daawadayaal meel kasta oo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena aragti bulshada ku daawan doontaan qodobo aanu isleenahay waa kuwii ugu xiisaha badnaa wararkii dalka Sweden iyo caalamka ee isbuucii tagay. Qodobada aad ku daawan doontaan inta uu soconayo barnaamijka ayaa waxaa ka mid ah dawladda Sweden ayaa ciidamadii ugu badnaa abid geysay xadka Ruushka iyo Sweden ee jasiiradda Gotland. Sweden ayaa qorsheynaysa in ay yareyso xukunnada markhaatiyaasha muhiimka ah si ay wax uga qabtaan dembiyada abaabulan. Maandooriyaasha soo gala dalka Sweden oo aad u kordhay. 7 qof oo tahriibayaal ah ayaa ku dhintay 280 kalena waa laga soo badbaadiyay jasiiradda Lampedusa ee dalka Talyaaniga. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku daawan doontaan inta uu soconayo. Waxaa idiin tabinaya anigoo ah Xasan Maxamed Axmed Xasan Liisho. halka aad ka daawanaysaan waa barteena aragti bulsho mar kale iyo barnaamijkeennii aragti bulsho mahadsanidin. dawladda Sweden ayaa ciidamadii ugu badnaa abid geysay xadka Ruushka iyo Sweden ee jasiiradda Gotland. Sweden ayaa xoojinaysa joogitaanka ciidankeeda ee jasiiradda Gotland oo ah qaybta ugu dhow dalka Ruushka. arrintan ayaa timid kadib markii uu fashil ku dhamaaday wadahadal u dhaxeeyay NATO, Mareykanka iyo Moscow toddobaadkii hore. inkastoo Sweden aysan xubin ka ahayn NATO, waxay xulufo dhow la tahay isbahaysiga militariga. Gotland waxay ku taallaa meel istiraatiiji ah oo ku taal badda Baltiga iyo wadamada Baltiga ee EU-da waxay dhammaantood xuduud la wadaagaan Ruushka. xiisada u dhaxaysa Ukraine iyo Ruushka ayaa sare u sii kacaysa kadib markii uu fashilmay wadahadalka. Moscow hadda waxaa ku sugan ku dhawaad 100,000 oo askari kuwaasoo ku sugan meel u dhow xuduudda Ukraine. Ukraine waxaa lagu weeraro dhanka internetka ah oo hawada ka saaray shabakado badan oo ay dawladdu leedahay inkastoo loo maleynayay in uu Ruushku ka dambeeyay. dhanka kale Ruushka ayaa diiday in ciidamadiisa ka daadgureeyo xuduudda Ukraine isagoo sheegay inay xaq u leeyihiin inay halkaasi geeyaan. Sweden ayaa qorsheynaysa in ay yareyso xukuumadda markhaatiyaasha muhiimka ah si ay wax uga qabtaan dembiyada abaabulan. dawladda dalka Sweden ayaa soo bandhigtay qorshayaal lagula dagaalamayo kooxaha burcadda ah iyadoo la dhimayo xukuumadda lagu rido dadka la shaqeeya booliska. soo jeedintu waxay diiradda saaraysaa tuhmanayaasha iyo markhaatiyaasha muhiimka ah kuwaas oo laga yaabo in ay la shaqeeyaan dembi baarayaasha si ay u caawiyaan aqoonsiga dembiilayaasha kale. wasiirka cadaaladda ee xisbiga Social Democratiga Morgan Johansson ayaa sheegay in qorshayaasha looga dan leeyahay in lagu jabiyo dhaqanka aamusnaanta ee ka dhex jira burcadda Sweden. maandooriyaha soo gala waddanka Sweden oo aad u kordhay. hay'adda kastamka ee Tullverket-ka ayaa kor u qaadi doonta wada shaqaynta ay la leedahay wadamada adduunka si loo yareeyo muqaadaraadka soo gala dalka Sweden. baaritaan cusub ayaa muujinaya in uu kor u kac ku yimid baakadaha boostada lagu diro muddada uu adduunku saameeyay caabuqa COVID-19 taa oo keentay in hay'adda Tullverket-ka haleeli kari weyso in ay wada baarto dhammaan baakadaha ku yimaada boostada. sanadii 2021 ayay laabantay baakadaha Sweden soo gaara ee dibadda ka yimaada marka loo barbar dhigo 5 sano ka hor. Det är ju ett så stort flöde och vi kan inte vara överallt hela tiden dygnet runt. 7 qof oo tahriibayaal ayaa ku dhintay 280 kalena waa laga soo badbaadiyay jasiiradda Lampedusa ee dalka Talyaaniga. sida wararku sheegayaan 7 qof oo tahriibayaal ah ayaa ku dhintay kadib markii ay isku dayeen inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka iyagoo ku jira xaalad qabow ah sida ay sheegeen ilaalada xeebaha dalka Talyaaniga. 280 kale oo tahriibayaal ah ayaa la badbaadiyay iyagoo saarnaa dooni alwaaxa oo buux dhaafiyay meel u dhow xeebta Lampedusa. maamulka ayaa intaasi ku daray 3 ka mid ah dhibanayaasha ayaa meydkooda la helay markii ay soo gaareen ilaalada xeebaha.
halka 4 kalena ay dhinteen xilli loo sii waday jasiiradda yar oo ku taal dalka Talyaaniga. muhaajiriintan ayaa u badan wadamada Masar iyo Bangladesh. intaanu barnaamij mid lamida ku wada kulmi doona asbuuca dambe haddii Allah awood leh idmo waa anigoo Xasan Maxamed Axmed Casal iyo kaga taga sidaas iyo nabadgelyo amaana